بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك الحميد المجيد. اللهم إنا أسألك رضاك في الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا أسألك رضاك في الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك الإسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت وكل نفس بما كسبت رهين. كل شيء هالك إلى يرجع إلى أصله. raaliga ahaada mistake baan sameeyey walaalahey waa inay wada salaamay meel kastoo aad joogtaan dunida dacaladeeda. waa walaalihiini midnimo qaran markastaba dalkii dadkii ciida u taagan, khaasatan waa walaashiin Khadro. walaalayaal, wallaahi I can't imagine caaway iyo hameenkii hodan naaleeya ay dhimatay same darajo caawa ii taagan tahay. dareenkayga, fiilinkayga, qalbigaygu siduu yahay ilaahay subxaanahu watacaala ayaa og. laakiin ilaahay subxaanahu watacaala markastaba wuxuu yiri wax kasta oo dhib ah oo idinku yimaada ama culays oo idinku yimaada ha ka quusanina raxmadayda. allah subxaanahu watacaala raxmadiisa kama quusanayno. allah subxaanahu watacaala naxariistiisa kama quusanayno. qof kastana maalintiisuu dhimanayaa, waqtigiisana dhaafi mayo. almowtun ka-asun wakula naasu shaaribuhu. bili-aadniga dhanna way ka cabayaan malka mowdka, waana la wada socdaa. laakiin waxaa u daran cawaaqib xumada iyo dhimashadu sida ay kugu soo marto iyo xanuunka ay reebto oo familkaagii, dadkaagii, caruurtaadii, ninkaagii, waalidkaa, ehelkaagii intaba aada uga tagtid. meeshaan kuma soo sifayn karo. geeridu waxa ay leedahay meesha oo wada soconaa kama xumi inaan wada dhimanayno. laakiin waxaan arkaa duni tusbax go-ay laga dhigay oo hameenba ka nugu jiro, hameenba wiilka nugu jiro, hameenba gabadha nugu jirto, hameenba doorka nugu jiro, hameen kastaba ilna laga ridayo. markaan ishii ilowno oo aynu il kale inoo furanto aan nidhaahno alla dhalinyaro kalaa maanta inoo soo baxdana ayagii cunaha la qabanayo. walaalayaal, halkan waxaan tacsi uga dirayaa dhammaan ehladii iyo qaraabadii iyo familigii ay khaasatan walaalaheed, hooyadeed macaan iyo xaajigeedii walaasheen almaas almaan, aabaheed alman cali. markaan historigiisa soo raadiyey waa aabihii Soomaaliyeed ee sidii 1991 looga soo qaxay dalka. aabaha kaliya ee ka dhiidhiyey ilmaha dhimanaya, hooyada la kufsanayo, dalka laga qaxayo, oo inta ooyay hadalkiisa cod dheer gaarsiiyey oo yiri dhalinyaroy qoriga dhiga ee qalinka qaata. ilaahay subxaanahu watacaala jannaatul firdowsa ha gaarsiiyo. ilaahay subxaanahu watacaala dembigiisa iyo dembiga waalidkiisa ha dhaafo. maxaa yeelay wuxuu nooga tegay gabadhaasoo kale iyo gabdhaha lamid ah oo qaarkood hadda ciidanka qaarkood ku jiraan, qaarkood dadka iyo dalka iyo shacabkaba u taagan yihiin. hooyadood samir iyo iimaan allaha ka siiyo. dembigeeda iyo dembiga waalidkeed allaha dhaafo. dembiga waalidiinteed allaha dhaafo. waa hooyo waa anoo kale, xanuunka ay dareemayso waa dareemayaa. ilaahay subxaanahu watacaala sidii ay shalay elman cali axmed oo musaygeedii ahaa oo xaaskiisii ay ahayd ee xaajigeedii wanaagsana ay caruurta u hayay sidii ay uga samirtay, samirkii iyo buraamtii ilaahay shalay quluubteeda geliyey maantana ilaahay ha geliyo. gabadheedana
ha uga samir iyo iimaan siiyo. hooyay noqon rabtay sida hadalku igu soo gaaray, uur way dhali rabtay 3 bil ka bacdi 6 bilood meelahaasay ahayd, gacan ka xaq daran baa dishay. laakiin way ahayd iyo way ahaan jirtay. Soomaaliya maxaa ka fiican? waxaan u baahannahay haddaan Soomaali nahay, dhalinyarada Soomaaliyeed waxaynu u baahannahay ragga aragnay. We need a powerful women union Soomaaliya uga baahannahay. ragga intii oo damiir leh oo wax garanayso dhalinyarana hadday nagu soo raacaysa falilaahi alxamdu. maxaa yeelay maalin kastaba in kii holdoor ah ama wiil ha ahaado ama gabar ha ahaado. maanta runtaa idiin sheegaya, shalay waxaa lagu dilay madaxtooyada horteeda, waad xasuusataan, wasiirkii ugu da-yaraa wasiirada. maantana xalane oo aeroboorka cabdirashiid calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu, xalane oo meel kasta kaamara kaga xiran tahay, adduunka ugu sabtigiisu joogto ajnabi joogo, ayaa waxaa lagu digay gabadhii inuu ku baawarka badnayd ee maantayta dalkan iyo dadkan wuxuu qabanaysay oo misna 26 years old. futureka mustaqbalka dadka. marka dhalinyaro waad hurdaa runtii. waxaa layidhi nin hurdow adaa lagugu hurdaa. maantayta ninkii isdhahaya dilka cabdiraxmaan yariiso waxaa ka dambeeyay Soomaali. ninkii isdhahaya dilka almas alman waxaa ka dambeeyay Soomaali. ninka isdhahaya wasiir Cabbaas dilkiisi Soomaali baa ka dambeeyay. don't sleep, wallahi Soomaali inuusan ka dambeynin. you guys don't sleep. we need inaan sameyno dagaal looga soo horjeedo xalane inaan Muqdisho ka rarno waayo. ajnabi sidaan isaga rari lahayn inaan falankeena qabano waayo. waa inaan dowladeena support garaynaa. dowladana waxaan uga diraynaa halkan fariin khaasatan ani qof kale responsible kama ihi. I'm really disappointed wallahi hadalkayga. I'm disappointed. xalane dhexdiisa ayaa powerful person lagu dhex dirayaa oo Soomaali ah, oo securitykeedu saxan yahay, oo wax kasta saxan yahay. I can't believe. waxaa kaloo inii sheegayaa Soomaaliya maadaama ay dhegeysanaysiin, hadda i daawanaysiin wiilkii darawalka ahaa iyo wiilkii la socday ee cameramanka ahaa maanta inta la xiray waa la soo daayay. intaasaa idiin sheegayaa. dowladdu waa ballan qaaday inay investigationka galayso. xalana waa la tegay. anyway waxyaalo badan in lama shaargarayn karo, laakiin Soomaaliya waa hurudiin. hurdada ka kaca. waa hurudiin, hurdada ka kaca. wallaahi waxaana laynaya, waxaana qarxinaya, waxaana baabi'inaya, waxaana dhidib tiraya, waxaa madaxdeena isku diraya Soomaali ma aha. waana lagu dhex jiraa. dalkeena in nala tirtiraa la rabaa. carab hadday weji u leedahay 350 madfac baa maantayto Falastiin Qudus lagu burburiyo, lagu baabi'iyay. innagana qaarkeena imaaraad buu dabada ku wadnaa, qaarkeena Sacuudi buu dabada ku wataa. midaas xayaato darro, taas nolol darro, taas sharaf darro. maantayta dhalinyaradii dalka ay joogaan oo baasaboorada ka haystaan oo nabadda ugu nool yihiin oo wax ka barteen wadankoodii ku noqdaa lagu baabi'inayaa. waad aragtaan. Soomaaliya qofkaaga wax barta lama rabo, qofkaaga kartida lama rabo, qofkaaga opinionta dheer lama rabo, qofkaaga meel shisho wax ka arka lama rabo. dalkani waa la baabi'inayaa. inakana ma aha wax baabi'inayna, inaka isbaabi'inayna. waxaan leenahay qabiil baa layna ku jeediya. wallaahi sida madowga Maraykan jooga sida loogu baabi'iyay, muusiga loogu jeediyay, raabka loogu jeediyay, kalaabka loogu jeediyay, shiishada loogu jeediyay, qashinka loogu jeediyay, khamrada loogu jeediyay, ayaa inagana waxaa la inoo ku jeediyay maskaxdeena qabiil. there's no qabiil wax la dhaho. Soomaaliya maanta tartar baana loo wadaa. wallaahi I'm very disappointed. almas baa maanta ku quustay. shalay hodan ay ahayd.
maanta almas waaye daraad cabaasay ahayd shalay waxay ahayd cabdiraxmaan yariiso meesha laynoo wata baad aragtaan soomaaliyey waad hurdaan dhalinyaray waad hurdaan dhalinyaray hurdada ka kaca dhalinyaray don't look back please don't look back xalana aan ka rarno dowladana garab aan siino we need Amazon inay wadanka ka baxdo gaaladan inay naga baxdo we need Ethiopia inay naga baxdo Kenya naga baxdo Sacuudi naga baxaan Qatar naga baxdo Imaaraad naga baxdo wallahi gaaladan naga baxeen muslim xataa ahaadeen naga baxaan we don't need no one qofna uma baahnin waxaana baabiinaya cid kale maaha iyakaana baabiinayo qofkaani maskaxda dheer lahaa waa la dilayaa wasiiradeena caqliga lahaa waa la leynayaa broadcastgaani waa la leynayaa activistayaashaani waa la leynayaa dadkii dalka wuxuu qabanaya communityga waa la leynayaa soomaaliya caqligaaga ka shaqaysay yaa ku leynaya cid kale ma ku leynayso cid kale ma ku leynayso dalkan inaa Ethiopia ka saarno Kenya ka saarno Imaaraad ka saarno Carab ka saarno dhalinyaro gacanteena ku jirtaa ya wallahi oo billahi oo tallahi gacanteena ku jirtaa wax kale inaysu ku jirin wax kale kuma jirto gacanteena waxaan ahayn kuma jirto dhalinyaro meesha aan ka kacno oday warkiis ma rabno habar warki ma rabno qabqabla warkiis ma rabno wallahi maanta farmaajo iyo kheyraad ay banaanka soo dhigin xalana sheekadeeda banaanka taa la soo dhigin sheekadu taa waa ka sii weynaanaysaa no we can't tag anymore no xalan hala isku dilayaa killarkiina lama haayo evidence lama haayo taas wax macquul ma ahan no way shaqaalahooda taleefanka ku dhex hadla dee shaqaalaha ergaraystaan Soomaaliya uu taleefon ku hadlo maalinta ku xigta way faayiraan how do they know say ku ogaadeen qofkaas way cayriyaan qofka ay kaxaynayaan meesha ka shaqaalaysiinayaan indhahay u xiraan ilaa meeshuu tagay waa qariirad yar saxaro yar ee nagu dhex nool waaya xalane we need to wake up Somalia wallahi we need to wake up indhaha aan kala furno dalkeena waxa gubaay mar dhowr naga dulkacaana la dhahayaa wallahi naga dulkacaana la dhahayaa way socon doontaa taas hadda ka hor history waxaa dhegeysanaya Faadmo Dayb ay ka samaysay nafteyda uga soo qararay tiri waa runteed nobody need her yaa u baahan waa gabar Soomaaliyeed oo wax baratay ciideeda iyo dalkeeda iyo dadkeeda u hiilinaya dhagaxii ciida u hiilinaysa xabadaa lagu qaboojinaya haday firig tiraada yaa ku hiilinaya waa kaas maanta Nairobi waa looga yeeray xaamile ahayd hooyo cusub oo uu guurkeedu u cusub yahay lifekeedu u cusub yahay quruxdeedu u cusub tahay maanta ito Nairobi waa looga yeeray it was set up the government woke up wallahi it was set up Nairobi waa looga yeeray she went raalli ahaada haddii hadalkayga uu sii xumaado wallahi Nairobi baa looga yeeray gabadhii Nairobi markii looga yeeray 3 saac kaliya xamar joogto markay inay soo noqoto damcana waa la dilay sabab what reason Cabdiraxmaan Yariiso miirin buu gala waa lagu dilay what reason waad xasuusataan wasiirkeeni Cabbaas maxaa lagu dilay Saada Cali maxaa lagu dilay hadanna leeya maxaa lagu dilay how taak waa ku salaamay all day was set up wallahi wax jaaka ma ahan set up bay ahaayeen wax loo diyaariyay ahaayeen marka Soomaaliya way ka baayni tahay ilaahay samri iimaan reerkii gabadha ka dhalatay haka siiyo kullu nafsin daa'iqatul maut wa kullu nafsin bima kasabat rahiin waa la wada dhimanayaa dhimashaduna
dhimashaduna waa xaq. dhimashaduna waa xaq, adina kama cararayso, laakiin si xun ku dhimo ayaa daran. marka waxaan leeyahay kulla nafsin daa'iqatul mawt wa kulla nafsin bimaa kasabat rahiin. hooyadeed iyo walaalaheedba samir iyo iimaan allaha ka siiyo, xaajigeediina samir iyo iimaan allaha ka siiyo. ayadana qabri xisaab male, xaamilo dhimatay weeye, laakiin ilaahay subxaana watacaala aakhiro jannadii ha ugu bedelo. ilaahay subxaana watacaala tii madkhulul janna, jannada ku yeelata ha ka dhigo. ilaahay subxaana watacaala tii su-aalaha loo fududeeyo ha ka dhigo. wixii dilayna ilaahay ha soo burburiyo. dowladana waxaan ka codsanaynaa xalane inay la xisaabtanto, xalane inay la xisaabtanto. aan naloo soo saara gabadhata sababta lagu diray. la xalana iskuulood buu leeyahay, meel kasta kaamarayaala kaga xiran. waan wada salaamayaa damiirkayga, intaa ka badan inaan hadla ima sii siinaayo. to be honest, aniga dhawaa bedelanahay. caawa hameenkii hodanaa laga dhimatay bay iila mid tahay. hameenkii hodanaa laga dhimatay iyo caawa isku siba ahay. way shaqey waaye haddaan gurigeyga imaaday. wallahi I don't know what I'm saying. waxaan sheegaayo ma garanayo, waxaan ku hadlaayo ma garanayo. aniga laftirkeyga meed socday inaan ahaa isku arkaa. maxaa yeelay dalkeena wax rabo ma lahan, dadkeena wax raba ma lahan. dhalinyaradeenna ayaga cadow isku ah, dhalinyaradeenna cadow ayaga isku ah, dadkeena ayaga cadow isku ah. maxaa yeelay qabiila isku haystaan iyo qurun iyo qashin. ayagana waa lagu maqan yahay, waa la isku dilayaa, waa la dilayaa, waa la khaarajinayaa. kii la is yirahdaba maantayto waa active, kii la is yirahda dhulkiisuu dhisayaa waa la dilayaa. kii la yirahda dhalinyaradiisuu caqliyeenayaa waa la dilayaa. wasiirka iyaga dhalinyarada waa la dilayaa. gabdhaha iyaga communityga waa la dilayaa. gabdhaha iyaga activityyaasha waa la dilayaa. xaggee ku noolaanaynaa dunida marka? dalka iyaga haddii saalna loo xaalafinaya xaggee ku noolaanaynaa? waan wada salaamaya. afyaal iyo musaabax kheyr badan aa idin rajeynaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.